waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhigno fadlan haddii aad markii kugu horeysay aad janaalkeena soo booqanayso subscribe inoo saar haddii uu muuqaalku cajab geliyana sidoo kale like inoo saar maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago saaxiibayaal xog iyo xaqiiqooyin u gaara filimka caanka ah Dildu Baagale ka oo kamid ah ee aflaamta ay Soomaalidu inta badan ee aad u jeceshahay inay daawato haddaba soo dhawaada saaxiibayaal filimkan Dildu Baagale waxa uu soo baxay 31 Oktoobar sanadii 1997 waxa hogaamiyalka wadaha jilayaasha caanka ah Shahrukh Khan waxa ku heliyay atriishadaha kale ah Madhuri Dixit Karishma Kapoor sidoo kale waxa filimka ka soo muuqday jilaaga caanka ah Akshay Kumar ama Mr. Bon waxa uu taqaanaba filimkani waxa la saaray tiyaatar gaaraya 245 tiyaatar lacagaha lagu qarash gareeyay waxa weeyaan 9 karoor una dhiganta 1 milyan oo dollarka Mareykanka waxa uu soo xareeyay 34.97 karoor oo ku dhawaad 3 milyan oo dollarka Mareykanka saaxiibayaal haddii aan eegno lacagaha uu keenay sanadii 1997 haddii sicirka maanta lagu jaangooyin waxay u dhigantaa 283.81 karoor ayuu keenay saaxiibayaal haddii aan eegno aan dhahay saaxiibayaal kooxda aan dhahna dadka tigidhka u goosta filimka waxaa lagu sheegaa 29,512,000 oo shakhsi ayaa tigidh u goostay filimkani tiyaatarada aaday si ay u soo daawadaan filimkani Dildu Baagale haddii aan eegno filimkani yaa director-ka ah yaa soo saarayaalka ah haddii aan eegnana waxa director-ka ama agaasima ninkii caanka ah Yash Jabra waxa soo saaray isla soo saaran waxa ka ah ninka caanka ah Yash Jabra oo filimka asugu baaba sidoo kale agaasima ka ah muusigada waxa uu garaacay Uttam Singh waxa uu kamid ah Uttam Singh muusigiistayaasha lagu jecel yahay Hindiya saaxiibayaal markaan eegno heesaha filimkan waxa qoray ninkii caanka ah ama ninka caanka ah Ananda Bakshi saaxiibayaal natiijada filimkan waxa uu noqday filim blockbuster ah ama filim guud weyn wuxuu kamid yahay aflaamtii ugu weyneed ee soo baxay sanadii 1997 saaxiibayaal markaan haddii aan eegno aadno aan dhahay saaxiibayaal xaqiiqooyinka laga diiwaan geliyay filimkani kuwada aad jeclaan lahaydeen inaad wax ka ogaataan waxa kamid ah filimkan waxa ka soo muuqday ama ka soo muuqday ninkii caanka ah ama ninka caanka ah Shahid Kapoor wuxuuna ka soo muuqday heesta caanka ah Leegay waa heesta ay ku soo baxayso ama ay qaadayso gabadha caanka ah ee Karishma Kapoor saaxiibayaal xaqiiqooyinka kale filimka laga diiwaan geliyay haddii aan u sii janjeerno waxa kamid ah filimkani waa filimkii ugu horeeyay ka soo wada muuqdaan Akshay Kumar iyo Shahrukh Khan kadib filimkan waxa iskala soo muuqdeen filimkii caanka ah Hey Baby ka oo la daawaday sanadii 2007 saaxiibayaal waana labadaas film oo kaliya labadan jira aflaamta iskala soo muuqdeen xaqiiqooyinka kale haddii aan sii eegnana waxa kamid ah waxa la leeyahay filimkani ninka muusigeeda u garaacay Uttam Singh waxay ku qaadatay muusigeeda inuu u sameeyo muddo 2 sano ah ama 2 sano ayuu sameynayay ama u sameynay music yani soo jiidasho leh si filimkan uu kala kiciyo sidaas darteed waxa la leeyahay 2 sano ay ku qaadatay ninkaas inuu muusiga u sameeyo muusigeeda filimkan inuu sameeyo saaxiibayaal sidoo kale xaqiiqooyinka kale filimkan waxa kamid ah filimkan waxa la leeyahay ama filimkan waa filimkii labaad ee lacagii ugu badnaa soo xariisay sanadii 1997 saaxiibayaal xaqiiqooyinka kale haddii aan sii guda galno ama aan sii eegnana waxa kamid ah filimkani waxa la leeyahay filimkani waxa marka hore loo bandhigay ama in hogaamiyaal ay ka wada hadaan dhanka doorarka atriishadaha aan eegno ama atriishadaha aan dhahnay inta aan loo dhiibin Karishma Kapoor iyo sidoo kale Madhuri waxa marka hore loo bandhigay Rafiina Tonton Juhi Jalwa Kajol Manisha Koral Urmila Shilpa Shetty ayaa loo bandhigay dhammaan way iska diideen doorarka filimkani ama inay jilaan atriishadahaasi sababtana lama sheegin oo shaaca laga qaadin yani waa unknown fact yani waan xaqiiq aan la ogeyn saaxiibayaal laakiin waxa la rumaysan yahay filimkani marka hore iyaga yani loo bandhigay si ay u sameeyaan filimkani saaxiibayaal haddii aan sii eegnana xaqiiqooyin kale waxa kamid ah filimka sidoo kale doorka ninka lagu magacaabo Shahrukh Khan ama doorarka uu sameeyay Shahrukh Khan marka hore waxa loo bandhigay jilayaal ay kamid ahaayeen Amir Khan Saif Ali Khan iyo Salman Khan laakiin iyaguna waa ay iska diideen saaxiibayaal in ay doorkaasi jilaan sidoo kale waxa la leeyahay dadkii kale loo bandhigay filimkan waxa kamid ah Hema Malini yani Hema Malini ayaa la rabay in loo dhiibo booska Aruna Irani yani natiijada filimkani maamada ku jilaysay Aruna Irani in koor intaan filimka iyada loo dhiibin waxa loo bandhigay booskeeda atriishadii birsimaadka caanka ahayd ee Hema Malini laakiin iyaduna waa ay iska diiday saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa saaxiibayaal xogtii iyo xaqiiqooyinkii yaraa ee aan kala wadaagayna filimka caanka ah Dildu Baagale ka oo kamid ah aflaamta ay Soomaalidu jeceshahay saaxiibayaal fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar haddii aad janaalka cusub taana subscribe noo saar si aad u hesho muuqaaladan iyo muuqaalo ka xiiso badan saaxiibayaal waana mahadsantiin